madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku amaanay dawladda Nigeria sida ay uga mamnuucday dalkeeda Twitter-ka kadib markii shirkadda Twitter-ku ay tirtirtay qoraal uu soo geliyay madaxweyne Maxamuud Buhari. Trump ayay ka xidheen labada shirkadood ee Twitter-ka iyo Facebook bartii uu ku lahaa dagaaladooda kadib markii kooxo mudaharaadayaal ay galeen aqalka Koongareeska bishii January. qoraaladii uu soo geliyay baraha bulshada ee labada shirkadood ayaa loo aaneynaya kicin iyo qarbudaad ay geysteen kooxaha galay Koongareeska. Trump ayaa intaasi raaciyay shirkadaha aanay kala saari karin waxa xun iyo waxa wanaagsan, isagoo ku tilmaamay Twitter-ka iyo Facebook shaydaamo waaweyn. waxa uu ku booriyay dalalka kale inay sidan oo kale ay mamnuucaan shirkadda Facebook iyo Twitter-ka maadaama aanay ogolayn shirkadahooda xorriyadda hadalka.